السلام عليكم. سلام عليكم هي وسلامتين صاحب يالي يوسك هي يوسيدتين سلام جود وهي يسوعان هذا هندحقالو كسيت راعه سيده هي صود وين تطاي قروب كسوغا هي صلحة هاي هوش ساهان وادا قيسيادا قلمودو بين قارتا سيدرقاي الله هبطيو وسيده ودناها سلام كتيمد بهان دما هانتين دين سيدا السحق موي يوكنو هولاد سحر لان تاسي سلامتي بيهايد aad waxaan ugu faraxsanahay in haweenka u soo istaago caawadan nin baa yiri sheekh baa yiri oday baa sheegay gabadh baa sheegtay lama oran mahma gabadh sheegtay baa idin sheegay hadduu nin sheegayna hooyadii uu ka keenay hooyo Soomaaliyeed waxay tiri saddex baa Ilaahay laga magan galaa saddexda meesha lagu arko Soomaali ma taalo cadrad xishood lagu waaniyay gabadh cadrad meesha joogto oo la leeyahay xisho oo iyadu garan weyda inay xishooto horta meesha dhibu ma hadhin waxa la yiri maanta dhan wadaadada lagu taagnaa ku soo daraya caalim alla ka cabsi lagu waanay ninka caalimka hadii la yiraahdo war Ilaahay ka cabso caalimna qorta laga guro waa inuu dadka isagu wanaajiyo wax u sheego ninka caalimka waxa lagu ogyahay masaajidka culimada masaajidka ay soo dhaafin mid saddexaad waxay tahay Soomaalida ku badan tahay taasina وعرّولة دنتي سلواني. نينك عرّ. ماشى نين عرّولة على ليه هاي. دنت هذه وارسلان هذه واريل مهاي. واردلكي وارعلنكي وردك قلبويني ورا تحريبي ورا سعن ورا عرّولة ودرن يجا ورا تحريبه دوية عندنا تقول عرّولة وبل عرّتها وبل dadka cirada waxa loo sheegay inay sidoodii ku soo noqdaan dadka iyaga nabdeyn jiray dhibaato markay dhacdo oday xalin jiray dagaalada ma dhaceen dadka ragga dhalinyartana waxa laga rabaa ciroola inay u joogsadaan hadaa tiraahdo ana waxa qaanaad wax ma qortid waa dhibaato kale aqligu ku dheeriyay haweenka waxa looga baahan yahay in yaro haweenka gaaban baan dhahayaa horta waligeenba waxa la dhihi jiray haweenku waa laf dabart halkaas ma inaga taabtaan waa laf dabart wadanka haweenku waa laf dabart هذا